sida la socotiin madaxweynaha wuxuu hadal jeedin ka sameeyay baarlamaanka oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo wixii soo qabsoomay. arrinta labaadna waxay ahaaday kulamadii dhacay guddoonka baarlamaanka iyo madasha dhex maray iyo xaaladda dalka iyo doorashooyinka. marka hore waxaan wada ognahay dalkan doorashooyinkii ugu dambeeyay waxaa la xaqiijiyay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay ku faani karaan in doorashada xilligeeda lagu qabto, doorasho degan oo laga wada tashaday oo natiijadeeda la wada ixtiraamo ay noqoto. waa guul dadka Soomaaliyeed soo hooyatay oo ayna muhiim tahay in la xaqiijiyo arrintaas. madashu iyadoo taas ka duulaysa waxay aaminsan tahay inay laga maarmaan tahay doorashooyinku inay waqtigooda ku dhacaan, ay noqdaan doorashooyin hufan, laga wada tashaday, raali laga yahay, natiijadeedana qof walba oo Soomaali uu diyaar u yahay inuu fuliyo. sidaas darteed madashu waxay ka digaysaa muddo kororsi magac kasta loo bixiyo oo ay ka shaqeyso xukuumadda. si taas loo gaaro waxaa lagama maarmaan wada hadal dhab ah oo ku aadan arrintaas oo saamilada siyaasadeed dhammaantood ay ka wada qayb qaataan. dowladda xubnaha ka ah ama dowladaha xubnaha ka ah maxaan ku yiraahdaa dowladda dhexe ay ka wada qayb qaataan ama saamilada siyaasadeed dhammaantood. taas si loo helo waxay u baahan tahay abuuris jawi kalsooni, xasilooni iyo wada tashi. waxaan soo dhaweynaynaa maanta go'aanka aqalka sare ay soo saareen oo ay ku baaqeen in laga wada tashado arrimaha doorashooyinka. waxaan leenahay waa go'aan geesinimo leh, loo baahan yahay, xilligiisa yimiday, waana soo dhaweynaynaa. sidaas oo kale wada shaqaynta labada aqal ayadoo la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka ayadana aadan mataqaanaa u dhiirigelinaynaa inay wada shaqeeyaan labada aqal. marxaladda soo socota dhammaystirkeedana si wanaagsan oo wadajira loo wada shaqeeyo. sida la socotiin madasha xisbiyada qaran waxay aad ugu hawlaneed in xiriirka dadka Soomaaliyeed u dhaxeeya ama ha noqdaano dowladda dhexe, siyaasiyiinta ama axsaabta siyaasadeed iyo dowlad goboleedyada in la xoojiyo, taasoo ujeedada laga leeyahay inay tahay wadajirka ummadda Soomaaliyeed inuu sii xoogaysto loona diyaar garoobo marxaladda la joogo. marka aan u gudbo khudbaddii madaxweynaha, runtii waxaa la filayay in laga hadlo mustaqbalka iyo doorashadu sida ay noqonayso. mar walba waxaa lagu soo celcelinayay sida aad arkayseenba doorasho xur ah ama doorasho one man one vote inay dhacayso. madashu waa soo dhaweynaysaa doorasho one man one vote, laakiin waxay isweydiinaysaa goormay dhacaysaa, seesay u dhacaysaa. su-aashaasay isweydiinaysaa. weli ma cadda. maxaan ku idhaahdaa marka la fiiriyo amni ahaan inay suuragal tahay, siyaasiyan inay suuragal tahay, dhaqaale ahaan inay suuragal tahay, bulsho ahaan inay suuragal tahay. bilcagsi waxaan qabnaa hay-adihii ka wada tirsanaya dowladda dhexe oo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada inay sii kala fogaanayaan oo ay suurageli weysay kulankii la rabay inuu dhex maro dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. taasoo muujinaysa waxa la sheegayo wax ka duwan. marka laga hadlo amniga, waxaa la socotiin dalkan amnigiisu wuxuu soo maray heerar kala duwan. maanta ma huba inuu jiro amni xoogan oo la isku halay karo oo qof kastoo Soomaaliya uu dhihi karo amni la isku halay karaa ka jira. meel walba waxaa la dhigay dhagax, dariiq kasta waa la xiray. dowladda waxaad moodaa inay ku soo ururayso meelo kooban. arrintaasuna waxaan isleenahay waxay ka turjumaysaa waaqic ka duwan waxa dowladdu ay noo sheegtay. marka la fiiriyo ciidamada emisom iyo ciidamada dowladda iyo qalabeyntooda iyo dhaqaalaha ku baxa iyo waxqabadkooda, isla markaasna la barbar dhigo xilliyadii ka horreeyay, waxaad arkaysaa in waxqabad macnale uusan jirin.
ma dhaliilaayo ciidamada laakiin waxaan leeyahay waxaan jirin xanaan siyaasadeed oo keeni kara ciidamada dawladdu inay ka guuleystaan ay ciidamada amisomba inay ka guuleystaan maxaan ku idhahdaa cadowga al-shabaab mana noo muuqato dagaal dawladdu ay kula jirto ciidamada al-shabaab oo cadowga ah oo runtii mar walba u taagan inay dadkan dhibaateeyaan waxaan rabaa wax yar inaan jalleeco waxaan la soconnaa ciidamo aan ka tirsanayn ciidamada amisom oo dawladaha dariska ay leeyihiin oo mar walba soo gala ama jooga geystana dembiyo arrintaas waa arrin ka soo horjeeda heshiiska ay ku joogaan ciidamada amisom keenaysana kalsooni darro in lagu soo dhex daro ciidamo aan ka tirsanayn oo aan sharci ku joogin ciidamada amisom waxay sameeyeen sacrifice waxay sameeyeen dadaal fara badan waxaan rabnaa inaan sumcaddooda lagu ciyaarin la dhaawicin kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ku qabaan aan la dhibaataynin waxaan aaminsannahay ciidamada amisom iyo ciidamada dawladdu iyo ciidamada kale oo kaalmeeya oo u jooga tababarada inay ku filan yihiin cadowga inay ka xoreeyaan sidaas darteed golaha amniga UN-ka African Union waxaan ugu baaqaynaa ciidamadaas in si degdeg ah looga saaro dalka falalkii ay geysteenna lagu xisaabiyo sharciga la horkeeno waxaan rabaa inaan uga gudbo dadka Soomaaliyeed waa dad xur ah run waaye maanta in la kaalmeeyo u baahan yihiin laakiin waxaa jira waxyaabo mugdi ah oo shaki gelinaya in raalli laga yahay dadka Soomaaliyeed inay xur ahaadaan ka soo kabtaan dhaawacii qarannimadooda soo gaaray waxaan maqalnaa mar walba ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka hadla arrimaha Soomaaliya Itoobiya waxaan nahay dal darisa walaal ah ilaaha mataqaana daris naga dhigay inaan heshiinaan diyaar u nahay inaan wax qaybsanaan diyaar u nahay laakiin erayada ra'iisul wasaaraha Itoobiya noo sheego dawladana kama maqalno waxaan jeclaa lahayn in dawladdu ay noo fasirto madaxweynuhu inuu noo fasiro maxaa socda waxaan maqalnaa wax la yiraahdo isdhexgalka geeska Afrika maxaa loo jeedaa waxaan maqalnaa in dekada la bixiyay maxaa loo jeedaa marka wax la bixinayo dawladda waxaa la rabaa inay marsiiso process madaxweynaha kama bilaabato waxay ka bilaabanaysaa golaha wasiirada waxay aadaysaa aqalka golaha shacabka aqalka sare kadib ayay ku tagaysaa madaxweynaha inuu dekreeto ku soo saaro sovereignty-ga Soomaaliya waa wax qaali ah dada u soo dhintay dada u soo dhaawacmay xoolaha lagu bixiyay annaga iyo walaalaheena Itoobiya mugdiyaana dhex yaalla taariikh madow baana dhex taalla hadiiba ay dhab ka tahay walaalaheen inaan wax wada yeelano aan wada hadalno 2007 aan ugu dambeysay 2008 aan ugu dambeysay halkaan dada lagu laayay dada ku dhintay Soomaaliyeed ciidamada soo duulay waxba la iskama dhihin iskaashiga dhex maraya Soomaaliya Itoobiya Eritrea kaliya oo dawladaha kale oo Afrika ama geeska Afrika dhex mareenay macnihiisu muxuu yahay waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo dawladaha marka iskaashi dhex maraya political ahaan structure-kooda waa inuu isu dhow yahay Eritrea waa dad walaalaheena aan jecelnahay xurnimadooda dadka Soomaaliyeed ka soo qayb qaateen aniga idan hor fadhiya muddo aan soo joogay gacan ka geystay maxay ahayd waxyaabaha qaar gacan ka geystay laakiin maalintii ay xurnimada qaateen ilaa hadda doorasho kama dhicin annagana waxaan rabnaa 4 sano doorasho inay dhacdo maxaana kulmi kara ma ii sheegi karto waxaana kulmi kara maxay noqon karaa inaan isku darsano xalaal waxa la quutaa maalin cad heshiis aan ogolnahay in la wada hadlaan ogolnahay in walaalo la hadaan ogolnahay laakiin waxaan rabnaa horta koob inaan xaqiijino inaan nahay laba dal oo darisa oo colaad u dhaxay fahamsan waxa u dhaxeeya inaan ahaanaa u baahana intaas waa inta ku aadan integrationka iyo ciidamada aan ka mid ka ahayn amisom
walaalaheen Afrikaanka iyo dawladaha donoriska iyo dawladaha saaxiibada ah gacanta weyn ka geystay Soomaaliya inay meeshan soo gaarto aadan ugu mahad celinaynaa waxaan aad ugu mahad celinaynaa UN-ka iyo African Union laakiin waxaan leenahay mugdiga shacabka Soomaaliyeed waa qabaan wuxuuna u baahan yahay in la address gareeyo arrinta integrationka waxay u baahan tahay banaanka in la soo dhigo wasaaraha Itoobiya aad u mahadsan yahay inuu nala wadaago waxyaabaha qaar mararka qaar ilaa xad la gaarsiiyo isku dal aan noqonaynaa marka isku dal intaan aan noqonin waxaa fiican annagoo laba dal intaan wada hadalno oo mashaakilka dhexdeena ay ka heshiino kadib inaan gudubno waxaan rabaa inaan u gudbo hanaanka dawladnimada Soomaaliya waxaad ogtihiin wuxuu soo maray maraaxil kala duwan wuxuu marayaa marxalad xasaasi ah haddaan la helin political stability haddaan la helin wada hadal haddaan la helin isfaham sharciga waqtiga loo asteeyay hay'adaha dastuurigaana oo dhamaado maxaa ka dhici doona dalka yaa yaqaan mugdigaas iyo walwalkaas waxay keenayaan xasuulin darro waxaan xoojinaynaa baahida loo qabo wada hadal dhaba oo laga galo arrimaha doorashooyinka waxaan muujinaynaa dhinaceena inaan diyaar u nahay in laga wada hadlo cid kasta oo mataqaanaa muhiim u ah wada hadalkan ay ka qayb qaadato loona diyaar garoobo wada hadal wanaagsan oo keeni kara horumar qodobka ugu dambeeya oo aan rabo inaan ka hadlo waa qodobka xisbiyada dalkan muddo dheer waxaa ka socday oo lagu soo socday 4.5 xisbiyada asbaabta loo sameeyay inay hanaan cusub oo siyaasi ah oo dalkaanuna ku horumari karo ummaddu isku raaci karto inay keenaan waqti badan lagu bixiyay axsaabta iyo siyaasiyiinta ka qayb qaatay iyo dadka Soomaaliyeed oo ku mahadsan yihiin juhdi badan lagu bixiyay waxaan rabnaa in dalkan uu u gudbo marxalad la isku doorto aragti siyaasadeed program siyaasadeed afkaarta siyaasigana waxay keenaysaa in ummadda Soomaaliyeed aysan u midoobin hab qabiile ay u midowdo hab siyaasi ah waana kan muhiimka ah waana bilowday marka waxaan rabnaa in la dhiirigeliyo dadaalkaas bilowga ah oo aan aaminsanahay inuu xalli doono mashaakil fara badan aad iyo aad u mahadsantiin waxaan ku soo dhaweynaa walaalkay madaxweyne xasan sheekh